kulankan caawa waxaan kaga warramaynaa booqashadii aan dhowaan ku tagnay magaalada Laascaanood ee xaqiiqa raadinta ahayd inaan soo bandhigo waaqica iyo xaaladda dhabta ah ee magaaladaas ay ku sugan tahay iyo sooyaalkii aan soo dhaafnay ee magaaladaasi ay lahayd wax ka mid ah oo xiliyadeedii dhow ah marka aan muujino waxa meesha yaalla waxaynu ku xujin doonaa insha Allah inaan wax uun talooyin iyo afkaar ah ku biirino iyadoo ujeedadu ay tahay inay xaqiiqa muujintaas iyo tala soo jeedintaasi ay qayb ka noqoto joojinta dagaalada iyo in la gaaro xal kama dambays ah inta soo dhaweysay waxay ahayd sida munaasibka ah markuu go'aanku soo baxana inaanay ka hor iman oo aanay xabad kala hortagin ay soo dhaweeyaan oo aqbalaan sida ay Puntland yeeshay Puntland waxay yiraahdeen haday wax isku waafaqaan saddex group ay u qaybsanaan haday isku waafaqaan hal wado anagu diyaar baan u nahay mowqifka horta munaasibka ku ah Soomaaliland inay yeesha kaas oo kale ayuu ahaa oo markay aqbalaan oo soo dhaweeyaan ay yiraahdaan hadaba inuu wada hadalo dana inaga dhaxeeya inaynu gaashaan buur noqonaan u baahanahay inaan wax wada Soomaali ka soo wada goosanaan u baahanahay inaan wax marka wada hadalku sidaa ku furmo haddii loo baahdo marxalad kale in la isku darsado iyadoo ikhtiyaariya loo gudbo laakiin aan xabad laga hortagin waxa sida Soomaali maxay Puntland ay yeeshay oo kale in bay ku yara haboonayd oo aan dagaalka iyo dhibta badan la gelin inta haddaan ka gudbo oo dhacaya ahayd xagga qiimeynta si dadka wax xalinaya oo sunaacul qaraarka oo go'aanka iskala iyo dadka wasaadada iyo heshiisiinta ka shaqeynaya ay waaqica isula fahmaan waxa natiijadu noqotay joogitaankii Soomaaliland ee ay deegaanada joogtay iyada iyo Puntlandba in uu meesha ka baxo oo hoggaanku u wareego garaadadii deegaanka inay taladii la wareegaan oo deegaanka oo dhan uu iyaga ku xirmo culimada Soomaaliyeed meel ay joogaanba wax eeda oo ay dagaaladan ku leeyihiin ama ay raali ka yihiin ama ay la shaqeeyeen ama ay la abaabuleen ma jirto kaliya waxaan rabaa inaan cadeeyo dadku meel kala duwan bay joogaan qaraarada qofku iyo mawaaqifta wuxuu ku qaataa xog ogaalnimada uu hayo waana sababta aan maanta xogtaan u akhriyay in dadka xog la'aan go'aano ku dhisan aanay qaadan culimadu waa kala xogaalsanta arrinta waa u kala dhowdahay saamaynta ay samayn karaan waa kala badan tahay marka haddaad aragtid sheekh si meel uga hadlay iyo mid kale mid baa waxa dhici karta mowqifka ugu adagba inuu aaminsan yahay laakiin meesha uu jooga aanay u saamaxayn inuu mawduucan ka hadlo marka waxaan rajaynayaa culimadu waa wixii u dambeeyay oo aynu haysanay oo kaydka Soomaaliyeed ah yaan lagu xadgudbin hal ixtiraam oo dhacaya ahayd xagga qiimeynta si dadka wax xalinaya oo sunaacul qaraarka oo go'aanka iskala iyo dadka wasaadada iyo heshiisiinta ka shaqeynaya ay waaqica isula fahmaan deegaankan dadkiisu saddex qaybood bay u qaybsanaayeen labada maamul oo labada dhinac ka xiga dad kala taageersan oo ku jira iyo dad labadaba aan ahayn oo magaca SSE iyo khaatuma iyo wata saddexdaas ay u kala jabnaayeen hoggaanka dhaqanka kala jabnaa siyaasiyiinta kala jabnaa ciidamada deegaankaas ka soo jeeda saddexda qayboodba u qaybsanaa taageerada dadweynuhuna way qaybsanay waliba kafadu dhinaca Soomaaliland bay jirto waayo deegaanka caasimadiisii Soomaaliland baa haysatay oo Laascaanood oo maamulaysay sidoo kale beesha caalamkuna Soomaaliland bay u soo marinaysay gargaarka ama samafalka ama horumarinta bay u soo marinaysay marka xaqiiqada runta saasay ahayd oo deegaankani uu qaybsanaa maxaa dhacay marka muddo 10 sano aba dadka magaalada xulkeeda ala leynay
oo la shirqoolayo ikhtiyaalaad lagu dilay oo bulshadu ay ka cabatay oo shirar badan iyo baaqiyo badan ay ka soo baxeen bal wasiiro badan intay yimaadeen baa xulka magaaladu la shiray oo ganacsatadii iyo aqoon-yahankii iyo culimadii iyo odayaalba leh oo war walaalayaalo waxaan aan Somaliland ta kala dadka ku laynayn oo anaga kaliya laynayo magaaladan kaliya laynayo xataa deegaanada kale oo laascaanood raacsan dadka lagu laynmin halkan magaalo oo sida tooska ah ay Somaliland u xukumaysay baa dadka lagu laynay inta oo taariikh lahayd oo la soo maray oo waxna laga qaban kari waayay ayaa soo gaaray marxalad ay qaraxday oo ninkii u dambeeyay marka la dilay ay dadweynuhu kacdoon ka sameeyeen oo ka mudaharaadeen ciidanka dawladuna ay marka xabadeeyeen oo dadkii ay waxyeeleen marka kacdoonka meeshan ka yimid iyadoo waaqicu sidii aan sheega ahayd oo deegaanku ka fadda dhinaca Somaliland uu u janjeero ayaa xaaladan timid oo kacdoonkan dadweyne yimid dabadeedna waxaa ku xigay nin lagu dilay magaalada dhexdeeda oo ciidanka Somaliland ay dileen oo dabadeedna kacdoon hubaysan uu ku bilowday oo ciidankii la weeraray dadka weerarana saa sheega ay ahaayeen waaba qaad walayaashii baa la yiri oo deegaanka ahaa oo waliba lagu tirinayo dadkii dawladda Somaliland taageersan inta waxa ku xigay waxay ahaayeen in ciidamadu markay ka baxeen meesha halkii garaad oo garaadada deegaankaas ka joogay magaalada Laascaanood inuu magacaabay guddi 3 xubnood ah oo dhammaantood magaalada Laascaanood jooga oo aan ahayn dad meel kale ka yimid guddigaasina markay shireen ay soo saareen in garaadada deegaanku ay isu yimaadaan oo ay shiraan waliba garaad jaamac oo isagu keligii ka joogay Laascaanood uu ku baaqay in Laascaanood shirka lagu qabto shirkaasna ay ka soo baxday natiijo ah Somaliland in ay ka baxdo deegaanadan kadibna uu sidaas dagaalku ku qarxay isku xiga dhacdooyinkii sidaasay ahaayeen waxaa muuqanaysa dadka faraha badan oo magaalada lagu leynayay madaxdii Somaliland u joogtay deegaanka inaanay dawladda sare xaqiiqada dadka dhibta haysata iyo kacdoonka bulshada iyo eed sheegadkooda inaanay madaxweynaha iyo hoggaanka sare u gudbin baa ka muuqanaysa dadkana qaar badan oo waxaa jira iska sacabiyo oo madaxdu waxa ay jeceshahay u sheegay xaqiiqada ka qariya arinta marka xusida mudan oo kale waxa weeye in dagaaladii marka ay qarxeen ciidamadii Somaliland oo magaalada joogay xoogoodu ay bulshadii la safteen oo dagaalka la galeen waayo ciidan kale magaalada ma joogo bulshadii dadweynaha magaalada joogtay iyo ciidankii Somaliland oo la saftay markii dagaalku qarxay baa dagaalka meesha ka galay waxa ku soo xigay waxay ahaayeen in Malaysia beeladyadii u soo gurmadaan kuwii Puntland ka soo goostay u soo gurmadaan kuwii federaal ka soo goostay u soo gurmadaan waxa dhacay sidaas isugu xigeen oo dhamaantoodna dadkii deegaanka ka soo jeedaya in bulshadii magaalada deganeed ay qaxdo oo meeshii ay isu bedesho markaa meel ciidamo iyo maleeshiyaad ay ku urursan yihiin oo dadka deegaankii ah oo ku haray ay kooban yihiin oo qoysaska waxa ku soo xigtay maamulkii deegaanka oo la doortay inay iyaguna dadkii la saftaan dadweynaha ahaa waxaa natiijadu noqotay joogitaankii Somaliland ee ay deegaanada joogtay iyada iyo Puntlandba in uu meesha ka baxo oo hoggaanku uu u wareego garaadadii deegaanka inay taladii la wareegaan oo deegaanka oo dhan uu iyaga ku xirmo siyaasiyan iyo maamul ahaan military ahaan baa Somaliland ciidankeedu ku haray magaalada Laascaanood atraafteeda iyo dhulka ku xeeran ama ku dhow ciidamadii Somaliland baa degan laakiin dhulka intiisa kale
labada maamulba waa ka dhammaadeen marka ciidanka Somaliland oo magaalada adraafteeda iyo dhulka u dhow jooga marka laga reebo arinta kale oo in la soo qaadan mudani waxa weeye si dadka arintani ay u saameysay aad u ogaatid dadkii joogay magaalooyinka waaweyn oo Somaliland oo ama qoysaska ahaa ama ardayda ahaa inay xataa qaxaan sida arintu ay u fogaatay ama saameynta ay u yeelatay oo ay ka qaxaan magaalooyinkii anigoo filaya cid wax yeeshay inaysan jirin ee ay tahay cabsi sida loo kala fogaaday waxaan xusi lahaa oo dadkuna ay og yihiin hoggaankii maadaama ay nimanka garaadada ay la wareegeen qofna kama qarsoona saameynta ay leedahay inay magaalada dhex fadhiyaan oo meesha la duqaynayo oo dagaalku uu ka socdaa inay dhex fadhiyaan oo aanay dhinacna u dhaafin waxa ay tusaysana dadku way fahmayaan hadalka oo dhan waxaan u sheegaya in la isla fahmo dadka Somaliland ku kacay dad meel kale ka soo duulay ma ahna waa dadkii Laascaanood deganaa oo dawladdu ay 15 sano xukumaysay waliba ay hogaaminayaan dadkii ku caqlisaday ee maamulka Somaliland iyo calankeeda oo meesha suran ay hogaaminayaan halkii garaad oo uu ka joogay uu ku baaqay in magaalada lagu shiro guddiga uu magacaabay ay ku reer Laascaanood yihiin ciidankii dawladda u shaqaynayay ay dadka la safteen maamulkii degmada Laascaanood oo meesha laga doortay ay dadweynihii la safteen cid dibad ka soo duusha aan ahayn dadka dibadda ka yimid waa dad u soo gurmaday Laascaanoodii Somaliland maamulaysay dadkii joogay iyo ciidankii Somaliland oo joogay oo isku saf ah iyo maamulkii Somaliland oo joogay oo isku saf ah bay dadka kale ama maleeshiyad beelaadka ama kuwa ciidamada Puntland iyo federaal ka soo goosta ay u soo gurmanayeen xaqiiqada meesha taal horta intaa weey arinta kale in la xusan mudan waxa weeye markii hore oo lagu baaqay in garaadadu ay Laascaanood isugu yimaadaan oo Somaliland ay arinta soo dhaweysay waxay ahayd sida munaasibka ah markuu go'aanku soo baxana inaanay ka hor iman oo aanay xabad kala hortagin ay soo dhaweeyaan oo aqbalaan sida ay Puntland yeeshay Puntland waxay yiraahdeen haday wax isku waafaqaan saddex group ay u qaybsanaan haday isku waafaqaan hal wado anagu diyaar baan u nahay mowqifka horta munaasibka ku ah Somaliland inay yeesha kaasoo kale ayuu ahaa oo markay aqbalaan oo soo dhaweeyaan ay yiraahdaan hadaba inuu wada hadalo dana inaga dhaxeeya inaynu gaashaan buur noqonaan u baahanahay inaan wax wada Soomaali ka soo wada goosanaan u baahanahay inaan wax marka wada hadalku sidaa ku furmo hadii loo baahdo marxalad kale in la isku darsado iyadoo ikhtiyaariya loo gudbo laakiin aan xabad laga hortagin waxa sida Soomaali maxay Puntland ay yeeshay oo kale in bay ku yara habooneed oo aan dagaalka iyo dhibta badan la gelin horeyna dadka taariikhda ogaa way og yihiin Somaliland meeshan 17 sanadood oo ay dhisnayd magaalada ma xukumin marka dambe oo magaaladan ay xukunkeedana wax ka horeeyo oo badan baa jiray oo muqaddimaad ah oo dadka deegaanka qayb kamida baa la safatay oo tilaabo ilaa markii u dambeysay Puntland ciidankeedii magaalada laga saaray iyada oo Somaliland ay la safan yihiin dad deegaanka kamida marka haddana sidii oo kale inay dhacdo in la yiraahdo anagoo isku duuban aan isku darsano de wada hadal bay u baahanayde xoog uma baahanayn inaha haddaan waaqica dhabta ah oo meesha ka jira iyo sida dhacdooyinku isugu xigeen aan u xusay waxaan jeclahay inaan xuso baaqa lagu baaqay xabad joojinta oo dawladda Somaliland ay ku baaqaday garaadaduna ay soo dhaweeyeen tilaabo fiican bay labaduba ahay maxayse u baahnayd in la hirgeliyo oo la fuliyo sidii ciddii kormeeri lahayd oo u dhaxayn lahayd labada dhinac horta laba magacaabin ma dad Soomaaliyeed oo la isku waafaqayba ma beesha caalamku awalba ku dhex jirtayba waxba lama samayn midda labaad hab wuxuu ku joogsada dagaalku lama samayn oo waxay ahayd in ciidanka magaalada xoogaa laga durkiyo meel aan de ciidanku is hor fadhiin
ay noqoto ciidanku magaalada qarkeedu fadhiya Somaliland kuwanina way ka horjeedaan marka dee niman isfiirsanaya oo dagaalamay oo isdilay cid ku dhex jirtana aysan jirin cilada in la xaliyo cid kormeerta oo u dhaxaysa in la magacaabana way ahayd marka waxaanu u baahanahay arrintan in laga dhabeeyo xabadda dhacaysa in la joojiyo oo si xabad joojintu ay ku hirgasho tilaabadeed la qaado talabaadna dagaalka afka ah oo dicaayada leh oo barabugaanka leh oo wax ka sheegga leh oo kicinta leh oo abaabulka leh oo kala fogeynta dadka leh waa in la joojiyo ilaa waxaa la rabaa in niyad sami iyo heshiis lagu kala tago oo wax la iskula gaaro xal ah arrintaana waa in si degdega iyadana loo joojiyo arrinta saddexaad waxa weeye in la soo dhoweeyo dadka sulxiga iyo islaaxa u socda oo Soomaaliyeed salaadiinta culimada ganacsatada dadka xilkaska oo Soomaaliyeed oo ka danqanaya dadkooda isku baaba'aya waa in la soo dhoweeyo oo garaadaduna ay soo dhoweeyaan xukuumadda Somaliland ay soo dhoweyso oo dadkaasi xataa haddii qaar dadka ay tuhmi lahaayeen xoogaa dhinac bay u yara badan yihiin waa in lagu talagala dadkaasi markay yimaadaan oo lala fariisto oo ay labada dhinacba arkaan oo ciidamayowga arkaan waxa xaqiiqada runtaa bay ogaanayaan waxaa laga yaabaa inay mowqif kii laga rabay ka fiicanba ay sii qaataan laakiin haddii dadka oo dhanba meesha laga horeeyo oo labada isku dilaysa keliya ay joogto oo muslimkii sama jeclahaayoo dhan ay meesha imaan waayaan arrinta xalka way inaga fogeynaysaa marka garaadada waxaan ka codsanayaa in la soo dhoweeyo cid walba oo islaax daatilbayn u socota reerkay rabaan ha ahaadeen deegaankay rabaan ha ka yimaadeen sifaday rabaan ha lahaadeen in la soo dhoweeyo nin walba xaqiiqada taa la tuso madaxweyne muuse iyo xukuumaddiisu inay soo dhoweeyaan cid walba oo sulxi ka shaqaynaysa oo lagu taageero oo si ku habboon loola dhaqmo waxaan doonaynaa inaan idhaahno garaadadu dadkan isdilaya kulli garaaday u yihiin waa dadkoodii waa dad Soomaaliyeed dhiigoodu wuu xanuujinaya waxaa la rabaa inay ka fakaraan sida ugu fiican oo dhiiggaasi uu ku joogsan karo oo suuragal ah madaxweyne muusena waxaan leenahay oday weyn oo Soomaaliyeed waxaan u malaynayaa madaxda iminka Soomaalida xukunta ama federaalka ama dowlad goboleedyadooda ninka ugu weyn inuu yahay oo odayaashii Soomaaliyeed hore ka haray waajibkiisu maanta kale wuxuu ahaa inuu ka shaqeeyo Soomaali inuu heshiisiyo oo mideeyo oo isu keeno oo taariikhda oday Soomaaliyeed u galay u haray uu maadaamay uu yahay oo taariikhda ay arrintaasi u gasho baa laga filayay intii yarayd oo dariska ahayd oo qaraabada ahayd inuu isku laayo laga filan mayn madaxweynuhuna arrintaa inuu iijaabi ka noqdo waxaan jeclaa inaan arrintaa ku daro salaadiinta iminka ka soo baxay Hargeysa oo inay u yimid og inay hawshaas galaan oo wax ka islaaxiyaan waa rag aan tiro badan ka garanayno garaadaduna ay aad u garanayaan in badan oo aan garanayno aan ku naqaan diin iyo daacadnimo iyo ra'yi iyo xilkasnimo iyo danta ummadda inay u danqadaan iyo inay fahamsan yihiin xaqiiqada iyo waaqaca dhulka iyo dalka ka jirta salaadiinta oo soo gurmaday inay dhiigga joojiyaan u soo gurmaday oo isxilqaamay in la soo dhoweeyo oo maqaamka ay mudan yihiin garaadada iyo bulshada reer Laascaanoodba ay dhigaan wixii u qabsoomi waaye ilaahay u qabsan maayo idinkuna inaad u qabsataan ma aha fattaqullaha mastadactum waxay qaban karaan bay qabanayaan waxa ay qaban waayaana kuma eedaysna arrinta kale oo xusida mudani waxa weeye mowqifka ay qaadatay beesha Garxajis hogaankooda sare iyo isimadooda wuxuu ahaa mowqif aad iyo aad u qiimo badan oo sharaf leh oo laga filayo oo ay mudan yihiin sida oo kale beesha Ayuub ay qaadatay waa mowqif sharafeed ay qaateen oo ku amaanan yihiin laakiin haddana waxaan halkan ka cadaynayaa inaanay mas'uuliyaddu intaa kaga dhacayn ee ay waajib ku tahay inay ka qayb qaataan dadaalada dhiigga lagu joojinayo
inay iskaashi la sameeyaan dadka kale oo sunaacul qaraarka oo taladu ay ka go'do si iyagoo isku duuban dhiiggan ay u joojiyaan halka kama dambaysta ana ay u wada xaqiijiyaan oo arrinta lagu dhammaynayo kuma filna anigu dagaalka kuma jiro dagaalku waa qalad eedda xukuumaddaas keligeedaa leh iyadaa adduun iyo aakhire loo haystaa intaa keliya kuma filna waa ku mahadsan yihiin mowqifkay qaateen laakiin wax ka weynna waa looga fadhiyaa si loo joojiyo dhiiggan muslimka oo daadanaya oo macsuumka ah oo loo gaaro xuluul lagu qanco oo mushkiladdu ay ku dhammaato waxaa lagama maarmaana in la helo qaraar loo dhan yahay oo hoggaanka somalilan ay u dhan yihiin baa loo baahan yahay kuma filna madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo xisbigiisu waa inay xalkaa ka qayb galaan golaha guurtida iyo golaha wakiiladu waa inay ka qayb galaan axsaabta mucaaradka ah waa in salaadiintu ka qayb galaan waa in culimada iyo ganacsatada waaweyni ka qayb gasho xulka bulshadu waa inuu ka qayb galo sababtu wax kale ma aha ninka maamulka jooga iyo xukuumaddiisa iyo xisbigiisu kursi bay haystaan inay sii haystaan ama dib ugu tartamaanna waa doonayaan meeshaa qaraarka ka soo baxaya qaraar haddii uu noqdo in iyaga keliya ay dusha u ritaan oo mas-uuliyaddiisa ay qaataan way ku adagtay haddii ciidanka somalilan iyo kuwa deegaanka ay ka dagaalamayaan joogaaba ku dhammaanayaan inay ku adkaystaan baa laga yaabaa arrinta noocaan oo kale waxay u baahan tahay marka si xal loo gaaro in qaraar loo dhan yahay laga gaaro waxaan jeclahay inaan meeshan ka xuso dowladda maraykanka oo tusaale u abaaqa iminka aan jeedinayo markay ciraaq duulaanka ku qaaday farahay kaga gubatay markay dalkii qabsatay oo dowladdii ciraaq ay burburtay ayay dowlad dadkeedu geesiyaal yihiin aqoon sare oo dagaal leeyihiin qalab haystaan hoggaan leeyihiin dulmi iyo gardarro lagu soo weerar bay ahaayeen si aad iyo aad u xirfadaysan u heer sarraysay ula dirireen ilaa maraykankii khaati istaageen dowladdiina ay sina yeeli weyday maraykanku iyo hoggaankeedii arrintii markay dhalaanaatay rag ka mida labada xisbi ee dalka u waaweyn ee jumhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa waxay abaabuleen in guddi ka baxsan xukuumadda loo saaro arrintan oo xog iyo qiimayn iyo tala bixin mushkiladda looga baxa ka keeni kara arrintii baa la waday kongareyskaa la geeyey labada aqal oo maraykanku ay ku dhan yihiin arrintii baa la waafaqay waxaa la xulay guddi 10 nin ah oo 5 iyo 5 labada xisbi ka kala socda guddiga ay si wada jira u shirgudoon uga yihiin 2 nin oo ninna uu wasiir arrimo dabadeed hore ahaa oo xisbiga jumhuuriga ka socda iyo nin ahaa majlis shuyuukh aqalka odayaasha ka tirsanaa mise sanadka loo yaqaan hore uga tirsanaa oo xisbiga dimuqraadiga ah baa madax looga dhigay 10 qof oo khubaro ah weeye oo madax sare soo ahaa waxaa la siiyey wax walba oo ay wax ku qaban kareen waxaa la shaqaynaya xarumaha cilmi baarista oo badan waxaa la shaqaynaya madaxtooyada waxaa la shaqaynaya bantagonka wasaaradda difaaca weeye waxaa la shaqaynaya mukhaabaraadka ama sirdoonka CIA waxaa la shaqaynaya wasaarat alcadl waxaa la shaqaynaya cid walba oo khibrad waxaan u leh baa ka shaqaynaysa wasaaradda arrimaha dibadda looma kala harin guddiyo kale oo farci ah baa la sameeyey 40 khubaro ah oo gaara oo muxalliliinay aruursadeen 33 taqriir warbixinood oo sirri oo daqiiqa baa loo soo gudbiya meel walba oo xog ku jirta loo furay inay galaan oo xukuumaddu aanay hor istaagi karin waxay shaqaynayeen 9 bilood cid walbay la kulmeen 170 dad madax oo xulay la kulmeen majaalis bay la fariisteen cid walbay u dhaceen kadibna waxay soo saareen go'aamo ku qoran 160 page oo 79 talo ka kooban guddiga waxaa loo bixiyey guddiga
cilmi baarista ciraaq waxay ku caan baxday lajnatu baker hamilton waa labadii nin magacyadoodii midna james baker baa la oran jiray midna lee hamilton baa la oran jiray labadii nin magacyadooda isku kabeen wey guddigaasi waxay keeneen inta la soo bandhiga waa intii dee muuqatay intii la qariyey oo aan caalamka loo bandhigina dee waa u gaar xalkii in wax xaqiiqadii bay soo bandhigeen waa qiimeeyeen inta xal oo suuragalay keeneen mid walba dhibaatooyinka u watay keeneen waxay waayeen xal aan khatara wadan markii u dambaysa kii u roonaa bay yidhaahdeen kaasaan ku talinaynaa waxayna ku dareen intaasoo talo oo lagu xalinayo waxaan qisadan u warinayaa marka inaan idhaahdo arrimuhu markay adkaadaan madaxweyne iyo xukuumad iyo xisbi looma daayo ummadda xulkeeda waa in ay iyo hoggaankeeda iyo sunaacul qaraarkeeda waa inay isugu tagaan waayo waa qadiyo istaraatiijiya waxaan rabaa marka inaan sheego inaan ku celiya mar kale waxaan ku baaqayaa oo adkaynayaa inaan loo kala harin xalinta colaadda meeshan ka taagan joojinteeda iyo xalinta waxa la isku hayo oo si nihaa'iya loo gaaro markii intaa la xaliya kadib majaalka siyaasadda iyo wada hadallada iyo iskaashiga iyo taxaalufku waa furan yahay hala tartamo waxaan ku khatimayaa kelimadda ugu dambaysa oo aan kaga hadlayo culimada soomaaliyeed meel ay joogaanba arrintan aad bay walwal iyo xanuun ugu haysay dhaqdhaqaaqyo badan bay ka samaynayeen gaar ahaan culimada joogta somalilan iyo kuwa jooga puntland si gaar ah aad bay hawsha uga shaqeeyeen waxaan garanayaa rag maalintii ay hawshani qaraxday ilaa maanta howlahoodii uga tago aan wax kala qaban si arrintaa xal looga gaaro oo jooga magaalooyinka hargeysa iyo burco dadaalka ay ku bixinayaan in waxaanay xalismaan oo salaadiinta la kulmayey oo siyaasiyiinta la kulmayo ganacsato la kulmayo cid walba abaabulayo iyagu gaar u shirayey oo intaasoo xarig isku xirayey oo khudbo ka hadlay oo bayaano soo saaray kala duwan arrintaas marka waxaan uga jeeda inaan idhaahdo culimadu wax tabar ah ama awooda oo ay leeyihiin oo ay hakradeen ma jirto waadna ogtihiin dadka dalka soomaaliyeed xukuma meeshuu doonaha ka ahaadee taladooda ayagaa jeebka ku sita mar ay ku ciiriday oo ay khaati taagan yihiin inay wax uun dadkeenna ka yeelaan way dhici kartaa inay beesha caalamka dadka la dhaho wax ka maqlaanna way badanta waana ogtihiin inta dagaala dhacay meel walba culimadu waa joogtay nin mar culimo lagu eedeeyey may dagaalkaas wax ka qabtaana ma jirin boosaasa dagaala ka dhaceen waxay ka dhaceen xamar gaalkacyay ka dhaceen beledweyne ka dhaceen waxaan ku kismaayey ka dhaceen hargeysay hore uga dhici jireen iyo burco labadaba midna culimada looma qabsan waagii dowladdii maxamed ziyaad barre joogtana looma qabsan intii dowladdu burburtay oo fawdada la ahaa dagaaladii dhacayana midna culimo looma qabsan laanno dadka diriraya dad culimo ka amar qaata ma ahane waa dad nimanka ama qabqablayaal kooxa haysta ha noqdeen ama niman maamulla haysta ha noqdeena iyagaa taladoodu gacanta ugu jirtaa xataa baarlamaanadoodaysan maqal in dani meesha dhigta mooyaane marka waxaan rabaa inaan halkan ka idhaahdo culimada soomaaliyeed meel ay joogaanba wax eeda oo ay dagaaladan ku leeyihiin ama ay raalli ka yihiin ama ay la shaqeeyeen ama ay la abaabuleen ma jirto keliya waxaan rabaa inaan caddeeyo dadku meelo kala duwan bay joogaan qaraarada qofku iyo mawaaqifta wuxuu ku qaataa xog ogaalnimada uu hayo waana sababta aan maanta xogtaan u akhriyayey in dadka xog la'aan go'aano ku dhisan aanay qaadan culimadu waa kala xogaalsanta arrinta waa u kala dhowdahay saamaynta ay samayn karaan waa kala badan tahay marka haddaad aragtid shiikh si meel uga hadlay iyo mid kale midbaa waxaa dhici karta mawqifka ugu adagba inuu aaminsan yahay laakiin meesha uu jooga aanay u saamaxayn inuu mawduucan ka hadlo marka waxaan rajaynayaa culimadu waa wixii u dambeeyey oo aynu haysanay oo kaydka soomaaliyeed ah yaan lagu xadgudbin ha la ixtiraamo ha loo duceeyo juhuuddooda ha looga mahad celiyo waxay qaban waayeenna rabbi uma haysto innaguna inaan u qabsanno xaq uguma lihin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbi